السلام عليكم دمانتين waxaan rajeynaynaa oo caafimaad qabtaan maalmaha waxaan kusoo jirnay IELTS listeningkeeni ama sectionkii listeningka ama qaybtii listeningka maanta waxaan dul istaagi doonaa iyo maalmaha soo socota waxaan dul istaagi doonaa IELTS readingka ama magaranayay reading skillka so readingkeenu wuxuu ka kooban yahay mar walba 3 section buu ka kooban yahay waxaana ku iman doonaa 40 question 40 question waxaa haystaa 60 minute oo waqti ayaa lagu siinayaa marka saddexda section sidii listening oo kale waxay 4 section buu ka koobnaa each one 10 question bay ka koobnaa laakiin reading ku saa ku yar duwan oo reading waa 3 section laakiin su'aaluhu waxay u kala qaybsan saddexda section marka in isleeg midkiiba kuma imaadaan laga yaabaa inay magaranayay in kala duwan section kiiba ku imaadaan 40 question saddexda section baa loo kala qaybinayaa mar walba marka no time to transfer your answers waxaad haysataa answer sheet baad haysataa iyo waraaqdii kale magaranayay su'aalaad ka shaqeynaysay marka answerskaaga waxa la doonayaa mar walba inaad u soo wareejiso answer sheetkaaga aad u soo wareejiso marka waqti dheeraad ah laguma siin doono marka waxaad sameyn doontaa inta magaranaysaa ayaad ka shaqeyn doonto ayaad maamulaysaa waqtigaaga oo halka aynu timingka aynu section ku xigaan ka hadli doonaa oo ah sectionka koowaad oo kale hadii aad imka 20 minute siiso sectionka labaadna 20 minute sectionka saddexaadna 20 minute ama passageka koowaad 20 minute passageka labaad 20 minute passageka saddexaad 20 minute 20 minute kale ayaad kala habaysan kartaa laba sibood samaysan kartaa inaad marka ugu dambaysa aad magaranayay answer sheetkaad ku wareejiso oo magaranayay halkii aad 60 minute kabaad su'aalaha ka shaqeyn lahayd aad 6 minute ka soo reebto 54 minute ka kalena aad ka shaqeyso magaranayay su'aalaha 6 minute kana aad ku soo reebto answerskaaga inaad ka shaqeyso ama inaad sameyso midkiiba inaad 18 minute intaad ka shaqeyso 2 minute aad ku wareejiso adoo sectionka marka dhameyso aad answer sheetkaad gelisato haddana sectionka labaad 18 minute baad ku dhameysay then answer sheetka tagtay answer sheetkii baad ku kurtay haddana 18 minute baad section 3 ga siisay then answer sheetkaad ku kurtay marka sidaas oo kale inaad sameyso ayaa fiican hadii aad magaranayay ama sidan kale oo 60 minute intaad 40 minute ka isticmaasho 6 minute aad answer sheetka ku soo wareejiso iyada laftirkeegu ma xuma marka aynu isla eegno labada qodob baad sameyn karaysaa laakiin muhiimadu waxay tahay inaan waqtigu ka dhicin oo adigoo answer sheetka aan ku soo wareejin aan ka dhicin hadii aanad answer sheetka ku soo wareejin answerskii oo waqtigu ka dhaco waraaqda waa laga qaadayaa waqti magaranayay dheeraadna lagu dari maayo imtixaankana 0 baad ka keeni kartaa adigoo ka wada shaqeey laga yaabaa inaad 40 marks 40 out of 40 aad keeni lahayd laakiin hadaan answer sheetkaanad ku soo wareejin waxaagaas ma shaqeynayaan marka taalaftigeega bal waan sii dul istaagi doonaa laakiin qodobka waa in laga feejignaado question types ama noocyada su'aalaheena aynu halkan dul istaagi doonaa sida listeningkii oo kale aynu su'aal kasta u dul istaagnina video baynu ka sameyn doonaa su'aal kasta waxa ugu horeeya qaybtan gap fillka waxa jirta qayb la yiraahdo true false and not given oo kala sheegayso maxaa runa qaybta koowaad kale waxa weeyaan inaad meelaha banaan buuxiso tan oo kale waa true and false you're not given kan oo kale waxa weeyaan waa information ka aan meesha ku jirin waan dul istaagi doonaa yes no not given multiple choice baad haysataa sidoo kale matching paragraph headings matching paragraph information matching sentence endings matching other features short answer questions so all these questions were 9 types baan filayaa and 9 types kaaba waxaynu dul istaagi doonaa 9 video kala duwan oo aynu one by one saad uga shaqeyn lahayd magaranayay u dul istaagi lahayd aad dibca fiican uga keeni lahayd readingka aynu isleegi doonaa insha Allah taala strategy-gan ku siinaya waa maxay strategy-ga aad isticmaali karaysaa uu ka duwan yahay kii aynu isticmaalinay listeningka strategy-ga writing-ka isticmaalaysaa uu ka duwan yahay reading-ka aad isticmaalayso marka bal aynu dul istaagno read the questions first then the passage tusaale ahaan kale passage baa lagu siiyey dad badan waxay sameeyeen in passage ka akhriyaan marka hore oo su'aalaha dhow tagaan waqti ma haysatid 20 minute baad section kiiba haystaa marka ugu horeysa adoon questions kiiba eegin ha iska tagin passage-ka laakiin marka hore su'aalaha soo akhri questions ka haysato soo akhri then magaranayay point-keena saddexaad ka hadlayba go to questions first highlight the keywords questions kaaga ku jira inta soo highlight karayso search for those keywords from the passage ka dhex eeg
keywords kaad soo highlight garaysatay marka tusaale ahaan kale waxa lagu yiraahdaa halku cali ku dhintay oo kale su'aalaha ku jirta cali baad ka dhex raadinaysaa iyo halku ku dhintay baad ka dhex raadinaysaa passage-ka cali baa keyword ka soo ma cali halku ku dhintay waad ka dhex raadinaysaa passage-kaaga schema and scan kana mararka qaarkood baad isticmaalaysaa only for names and numbers and other information that you need for example waxyaabaha aad u isticmaali karayso schema koo kale waxa kamid ah general idea of the text in ku fahanto imaka tusaale ahaan paragraph aad haysataa paragraph-kaad haysato inaad general idea-hiisa fahanto waxa ugu horeeya sentence-ka ugu horeeya kaliya taad isha u mariso iyo sentence-ka ugu dambeeya conclusion-ka ayaad paragraph-ka dhan aad ku fahmi karaysaa scan-ka oo kale markaad scan-ka aad sameynayso waxa weeyaan read for specific information waxaad raadinaysaa number oo kale 1999 oo kale raadinaysaa 1999 baad passage ka dhex baaraysaa marka maxaad sameynaysaa ishaad saa u maraysaa scan sidii dee scanning-ka marka la sameynayo kale ishaad saa u maraysaa passage-ka ama paragraph-ka aad haysato 1999 baad aragtay waad ku dhageysaa marka mararka qaarkood waxaad sameyn karaysaa schema and scanning laakiin waa marka aad specific information u baahantay ama aad doonayso inaad si degdeg ah aad general idea of the text ka u fahanto ama waqtiga kale ka sii dhamaanayo waxaad leedahay oo kale passage ugu dambeeyay marisay passage ugu dambeeyo kale su'aalo waxa ku jira ba ma garanaysaa paragraph headings ko kale match paragraph headings ko kale taasoo kale scheme waad ku sameyn karaysaa passage-ka intaad saa u scheme garayso oo akhrido oo dul marto oo disha saa u marto ayaad hadhow headings ka dooranaysaa bal marka waan isla eegi doonaa mid kasta fiidiyodeena soo socdaaya insha Allah isku eegi doonaa maadaama fiidiyogan iska yahay introduction ama aynu ku eegayno guud ahaan ma garanaysaa IELTS reading-keena especially academic marka aynu ka hadlayno sidoo kale general tips-ka aynu halkan aynu siino ama general tips-ka knowledge-kaagaba iyo language-kaagaba u fiican waxa ugu horeeya markastood akhrido oo reading samayso waa markastoo uu ku sii fududaado reading passage-ka aad galaysa ama imtixaanka reading-ka aad galaysa haddii qof marka horeba iska passage-yada iyo article-ada wax akhri jira tahay marka reading IELTS-ka aad galayso aad iyo aad kugu fududaanaya waxaana laga yaabaa inaad score fiican marka ugu horeyso aad ka keento laakiin haddii aanad sameynin reading waxa kugu adkaanaysa inaad imtixaanka dhibco fiican ka keentid improve your vocabulary reading-ka ayaa improve garayn karaba vocabulary-ga kuma talinayo intaad soo qaato dictionary aad xafido oo ma garanaysaa aad dusha ka qaybto why that doesn't make any sense vocabulary-ga waxaad sameyn karaysaa markaad akhriyayso inaad highlight garaysato kelmadda hadhow aad kusoo noqoto aad hadhow macnaheega aad fahanto context-ka ay ku dhex jirto laakiin haddaad markaad ereyadan ma garanaysaa aad iska xifdido ereyo gaara sidii aad hadhow iskugu xirxiri lahayd baa kugu adkaanaysa maadaama context-ka kaa noqonayba context-ku mar walba kugu jiro ereyga ama meeshuu gelayo ama meeshu kusoo baxaayo waxa kugu fududaanaysa inaad waxna qori karto waxna si fiican u fahmi karto garanaysaa hadalkii laftirkiisu ku fududaado practice kaasoo kalena practice makes you perfect baa la yidhaahdaa practice gare reading-ka markastaba practice gare read akhri dan ka jawaab su'aalaha oo kale waxaynu kula wadaagi doonaa insha Allah meelaha aad reading-ka aad ka geli karayso oo practice fiican aad ku sameyn karayso waqti fiican ma garanaysaa practice unlimited ay ku jiraan oo free kuwaas aad isticmaali doontaa bal insha Allah taala waxay la wadaagi doonaa maalmaha soo socda insha Allah ay video ka sameyn doonaa scoring oo kale marka waraaqada ma garanaysaa test result-ka lagu soo diraayo lagu qori maayo 39 su'aalood baa saxday 40kiiba laakiin waxa lagu qorayaa band 9 baa lagu qorayaa bandkani jaamacaduhu banki ku weydiinayaan waa bankan iyaga ayaa garanaya IELTS-ku ama IELTS-ka qoladan sameysa Cambridge ayaa garanaysa ma garanaysaa why ay u doorteen bandinkan iyo noocan type noocan in dadku qiimeeyaan laakiin inagu kaliya ta marka imka lagu leeyahay jaamacadaha badankoodu dadka waxay ka rabaan 5.5 6 6.5 7 iyo wixii ka sareeya badanka 5.5 baa ugu yarba 5.5 si aad u keentoba waa inaad 22 saxdaa ilaa 19 su'aalood marka 19 waa inaad laba section at least aad saxdaa oo laba section oo correct aad haysataa si aad ma garanaysaa aad u keento dhibco fiican laba section yaanan oran 20 su'aalood waa inaad keentaa ama 19 su'aalood ilaa 22 su'aalood inta ka dhaxaysa waa inaad ka jawaabtaa jawaabtooda aad saxdaa
haddii aad doonaysid inaad band 9 iyo 8.5 aad keento ama 8 aad keento waa inaad 6 su'aalood oo saxda ama ilaa 6 su'aalood marka bandka lagu qiimeynayo waa nooca insha Allah ta'ala. If you have any questions, comment below. nagula soo wadaag commentiga videoga noo sii share gareeya cidii u baahan inaad aragto diyaarinaysa IELTS-ka insha Allah ta'ala. noo subscribe garee like-ta noo saar insha Allah oo la wadaag asxaabtaada iyo dadka jeceshahay. aad baad mahadsantiin dhamaantiin.